habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan qaybtii afaraad ee qisadii taxanaha inoo ahayd ee Silaac iyo Saxariir Jaceyl oo si taxana aad kaga dhageysataan barnaamijka Caweyska Xubinta Faala Jaceyl. qaybtii hore waxay noo joogtay run ahaantii kulankaaga markii ugu horeysay lama filan ayuu igu ahaa la joogaagiina waxa uu yahay farxad balse wax waliba sida qalbigaygu uu rabo mar uun way noqon insha Allah. qaybta saddexaadna waxay noogu bilaaban doontaa Muumin waxaa soo maray maalmo xanuun badan caatow murugo iyo fikir aan dhamaad lahayn kadib waxa uu go'aan ku gaaray in jaceylkiisa uu sheegto halagu diido ama halaga yeelay markan go'aan kama dambeys ayuu gaaray ugu dambeyntiina waxa uu garwaaqsaday in uu maalin balamiyo inanta Raxma uu jaceylka badan u qabo habeenada kamid ayuu Muumin waxa uu garaacay taleefanka inanta Raxma durbaba waxa ka qabatay gabar ay walaalo yihiin Raxma waxaana lagu yiri aboowe ma joogta Raxma isna waxa uu ku yiri marka ay timaado dib ha igu soo celiso arin muhiim ayaana ka leeyahay una sheeg ha iga iloobin abaayo muhiim ayaana u ahay. saacado uun kadib waxaa dib u soo wacday inantii Raxma markan sheekadu sidii hore ma aha oo si kadis ayuu teelkiisii ku soo dhacay waxaana soo wacday inantii darteeda dhibana jaceyl u ahaa laakiin ma awoodo in uu la wadaago waxa qalbigiisa ka guuxaya maxaa yeelay cabsi saayid ayaa hayso diyaar garow ma uusan u gelin taleefankiisa ayuu qabtay hello walaalkii ayaa durbaba lagu yiri afkii ayaa bajuuqda gabay markale caafimaadkaaga kaban ayaa loo sii raaciyay balse isagu ma hayo tabar uu ugu jawaabo oo hadalkii ayaaba ka sii ba'aya maxaa ku helay aboobe miyaad ila hadashid iyo hadallo kale kadib Muumin ayaa la soo booday waan fiicanahay adigu sidee ii tahay abaayo Raxma ها dabcan waxa la ii sheegay in aad isoo wacday arin muhiimna aad iga baahneed ee walaal arinku muxuu yahay Muumin aad iyo aad abaayo laakiin hadda mashquul ayaan ahay marka si degan inaan kula wadaago ayaan jeclahay Raxma okay walaal dib ma lahan markaad mashquulka ka soo baxdo soo wac xitaa wuxuu awoodi kari waayay in uu balamiyo si ay u kulmaan ileen hadalkiiba waa uu gabay inankii Muumin ahaaye intaasi kadib markii waqti kooban uu la hadlay Muumin inantii Raxma una awoodi kari waayay in dareenkiisii uu u sheegto ayuu mar qura la soo booday waxaan ku caashaqay xadka balaareynta aadan ogaan kareynin xaqiiqda aan qiyaasta u gaaray waxay tahay burhaantaada ayaa maalin kasta siisa iftiin gaar ah oo qalbigayga ka dhexsidan qofuu jacayl dirqii madiira madiidiyo ruux qalbigiisa degay kolley ma damqado marno ileen kuma tago idaa qofuu jacayl dirqii madiira madiidiyo ruux qalbigiisa degay
kolley ma damqado marno leen kuma tago ida muumin habeenkaasi waxaa ka soo xirmay wado walba uu jaceylka ugu sheegan lahaa raxma oo waxa uu awoodi kari waayay inuu taleefanka ugu sheegto jaceylka daran u qaaday inanta raxma ama xitaa uu balamiyo si arinka jira uu la wadaago bartamaha sheekada ayaa la soo gaaray hadda ayayna sheekadu isku daba dhacday oo adigu dhageystay dhegta ayaa ku taagan balse qalinku waa qad la'aan